السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب يال waxaan idin la wadaagi doonaa muuqaalo kala duwan oo aan ka soo aruurinay kaamirooyinka wadooyinka ku xiran iyo waliba qaar ay duubeen kaamirooyinka gaadiidka ku xiran. Fadlan haddii aad tahay qof waayeel ah ama qof aan xamili karin muuqaalkaani ha daawan. Sidoo kale haddii uur aad leedahay ama tahay qof dumar ah uur leh waxaan kaala tali lahaa inaad muuqaalkan aadan daawan sababtoo ah waxaa ku jiro dhacdooyin ama muuqaalo aad u naxdin badan oo aysan daawo karin. Waxaana ka mamnuuca sidaas si lamid ah ilmaha inay muuqaalkan daawadaan. halkan aad u jeedaan waa waddo ay maraan gaadiidkan isticmaalaan balse cid og ma laha in guri ku yaala dhinaca waddada sida kuu muuqata uu si tartiib ah u soo dumayo. gaadiid badan ayaa halkaasi maraya iyadoona daqiiqado ka hor gaadiid tiro badan ay halkaani marayeen balse waxaa mar qura gebi ahaanba qarsoomay waddadii laamiga ahayd iyadoona oo gurigii dhammaantiisba sidaan u soo dumay. waxay ahayd wax aad u nasiib badan iyadoona qof kastoo halkaasi marayay uusan filanayn in gurigan uu soo dumayay balse nasiib wanaag cid dhibaato ay ku gaartay ma jirto. muuqaalka labaad ayaa waxa uu yahay sida ka muuqata goob lagu qabanayay tartan mootoleyda iyadoona ay ka soo qayb galeen dad tiro badan oo halkaasi u soo daawasho tagay tartankaasi balse mid ka mid ah dadkii daawanayay oo isaga mashquulsan moobeelka gacanta ayaa waxaa ku soo fariingoosta ama u soo gudbay mid ka mid ah mootolayaasha iyadoona si la yaab leh uu kaga badbaaday. muuqaalka saddexaad ayaa wuxuu yahay mid ka mid ah duuliyaasha diyaaradaha in qumaatiga hoose ku duula kaxeynaya ayaa mar qura waxaa dushiisa martay diyaarad kale oo gadaashiisa ka timaatay taasi oo ahayd inuu ku sigtino gebi ahaanba madaxiisa waayo. sida kuu muuqata aad buu u naxay wuxuuna gacanta saartay madaxiisa iyadoona diyaaradahani ay yihiin diyaaradaha yaryar ee jawiga hoose lagu duulo oo ay intooda badan kor ka feedan yihiin. waxaana halis u galay ninkaani inuu mar qura uu madaxiisa ku waayo maadaama diyaaraddu ay wax aad u yar u jirsatay. ciyaartaani lagu ciyaaro barafka ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu nasiibka badan ee dunida laga calaamadeeyey. sida ku muuqata goolhayaha ayaa waxa uu sikadiisa uga dhacaya iyadoona kubaddu ay martay diilinta goosha taasi oo lagu tilmaamay inay aad u nasiib badan. gooshaasi maysan dhalan waxaana cajiib ahaa in goolhayahaasi gooshaasi ay ka badbaaday. kani waa muuqaalka ugu yaabka badan ee aan idinla wadaagi doono. muuqaalkani waxaa duubay mid ka mid ah gaadiid ka dambeeyey ama gaadiid waddada marayay kaamiro ugu xirneed dashkabarka ama qaybta hore ee gaariga. inta badan waddamada hormaray gaadiidka waxaa lagu xiraa kaamirooyin. ninkan aad u jeedaan wuxuu kaxeynayaa mooto wuxuuna ka taba tagay gaari iyadoona mar qura mootadiisii ay halkaas ufuninta ay burburtay asagii laakiinse uu gaariga korkiisa ku istaagay sidii inuu yahay qof tababaran oo kale. waxaana lagu tiriyaa inuu yahay dhacdooyinka u nasiibka badan. bal fiirso oo si fiican u fiiri muuqaalkani ninkan mootada kaxeynaya waxa uu si dirqi ah ku badbaaday iyadoona muuqaalkaani ay u duubay gaari ka dambeeyey mootada. ninka mootada kaxeynaya ayaa si cajiib ah inuu tababaran yaho kale gaarigii kale korkiisa u fuulay iyadoona lagu tilmaamay inay ahayd nasiib aysan jirin wax tababar ah. muuqaalkan kale ayaa wuxuu yahay mid aad u yaab badan iyadoona muuqaalkani u qusayo mid ka mid ah dadka badbaaxiyiinta. waxaa jiray nin ku dhex jiray badda iyadoona kalluun fara badan halkaas uu jiray laakiinse xayawaan aad u weyn allaa weyne ayaa mar qura meel aanan waxba u jirin ka soo baxay isagoona afkiisa hal mar wixii kalluun ahaa ama wixii shimbira halkaasi joogay hal mar afka gashtay isagoona sidaas uu ku badbaaday. waxayna ka mid tahay dhacdooyinka ugu yaabka badan ama ugu nasiibka badan ee dunida laga diiwaangeliyey. geed ayaa waxaa hoos joogaan dhalinyaro iyadoona mid ka mid ah uu wato baaskiil halkaana ay ku sheekaysanayeen balse waxaa soo dhacay geedkii iyadoona si aan la filanaynin uga badbaaday ninkii baaskiilka wada geedkaasi oo meel uusan ka taaban. ciyaartan lagu ciyaaro kriketka inta badan aadka looga yaqaano dalalka Bakistaan iyo Hindiya ayaa mid ka mid ah ciyaartooydii waxa uu tuuray ama uu kubaddii ku tuuray qaybta taageerayaasha iyadoona si dirqi ah ay uga badbaadeen laba wiil oo dhalinyaro ah iyadoona sida muuqata uu kubaddu ama banooniga yarka ee tenniska ay dhex marayso labadaasi dhalinyaraha agtooda iyagoo aanan war ka haynin weliba mid ka mid ah ishiisa aad ugu dhowaatay taasi oo lagu tiriyey inuu ka mid yahay dadka ugu nasiibka badan ee ka badbaaday halis dhaawac culus u geysan karta. markaana waxaan idinla wadaagaynaa muuqaalka ugu naxdinta badan ee laga diiwaangeliyey dunida. wiil yar ayaa waxa uu ka soo fakanaya hooyadiisa isagoo iskuutarka ilmaha ay ku ciyaaraan oo wato laamiga ayuuna soo dhex galayaa taasi oo si cajiib ah naftiisii ay halis ku gashay haddana si
aad u nasiib badan ay gaadiidka halkaa maray uga istaageen iyadoona durbadiina hooyadii dhashay wiilkaasi ay ka soo daba oratay. saaxiibayaal guud ahaan muuqaaladii la yaabka lahaa ee naxdinta badnaa aan idinla wadaagnay intaas ayaan idinkugu soo koobi doonaa. waxaa jiri doona muuqaalo kale oo xiiso badan oo aan idinla wadaagi doono.